بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جودها مرت الشرف قيمها بدن كالدول كنا صوبين كشيء حفلة أو مناسبة لجودها فريو بوج جراشو أو قراء أقويها ربع عبد موسى أنا بقول هذا bahda agaasinka xafladan iyo qabaqaabadeeda mahadnaqa sokow anaga caawa farxad weyn bay noo tahay shirkad ahaan inaanu buugan aadka u qiimaha badan ee uu qoray qoraaga da'da yar aqoonyahanka da'da yar dhalinyarada ah Roble Cabdi Muuse isla markaana laga qoray abwaanka da'da yar murtida shilis abwaan Cabdullaahi Xasan Xaaji Cabdullaahi Xasan Ganay farxad weyn bay noo tahay inaanu buuga caawa nagu daabacno marka la farxad bay noo tahay oo shirkadda Sagalshad waa shirkad inta badan hoggaankeeda iyo tiimkeedu u badan yihiin dhalinyaro marar badan waxaad aragteen buug laga qoray qof weyn oo waqti hore dhintay qof weyn oo da'a farxad bay noo tahay in Cabdullaahi Xasan Ganay oo nin dhalinyaro ah oo bahda Sagalshad da'daasa buug laga qoro isla markaana anagu aanu daabacno taana waan ku faraxsanahay waxaan in badan xasuustaa dadkeenu waxay yiraahdaan maalin baa anagoo bas saaran baa nin xoog loo amaanay markaa ninka wala tacsiiriyo uu dhintay oday xagga daba naga fadhiyay baa yidhi markuu noolaa maad noo sheegtaan Cabdullaahi caawa waxaanu idiin sheegnay isagoo nool waa ka halkaa ku qoran Cabdullaahi waxaan dadkana leeyahay buugga Cabdullaahi xagga dambu yaala waxa ugu badan inuu Cabdullaahi caawa tani karnaa ma aha in wax laga helo si suugaanta ku duugan buuggaasi cid walba u gaadho buuggii xagga dambu yaala qof walba markaad sii baxaysa xabad soo qaado xabad sii qaado waad mahadsantihiin assalaamu calaykum jaamacadda anigu aan runtii magaceeda ku hadlaya waxay ku leedahay Somaliland 3 campus campuska Hargeysa Gabiley iyo Burco waxaan halkan si caawa kale waxa loo baahan yahay in la dhiirigeliyo qoraalka campuska Hargeysa halkan waxaan uga qaadaynaa konton buug marka insha Allah lagu soo bandhigo marka buugan oo filayo lagu soo bandhigi doono magaalooyinka Gabiley iyo Burco lagu soo bandhigana inta in la bay maamulka ma garanaysaa campusyadu ay ka qaadi doonaan hadii la helo aad baan u salaamaya aad baan u mahadnaqaya wax weeyaan tacab badan ku galiyo Roble waxaan jecelnahay inaynu inaguna si aynu qoraalka u taageerno aynu ma garanaysaa caawa buugaagta qaadana hadii la helo waxaynu u nimid inaynu buugan aynu falanqayno ka hadalno waxaan jeclaan lahay mawduuca aynu ku koobnaano oo dadka iga dambeeya ayaan usii kartaa warinaya أنا waxaan ka hadli doonaa buugan saddex qaybood saddex mawduuc baan ka hadli doonaa anoo soo koobiya waa ta koobaad ee waxa weeyaan halka uu qoran yahay qoraalka buuga garasho iyo talabaad oo ah mawduucyada ka kooban yahay cutubiyada iyo mawduucyada kala duwan ay soo hadal qaadayaan ta saddexaad oo ah faallooyinka laga bixiyay buuga haddaan ku horeeyo buuga halka uu qoran yahay waxa weeyaan وتكوبات وصل له معيو تحضر ريبو لو gudbiyo umada Soomaalida ah ee Abaan Cabdullaahi Xasan Ganay uu mansoodo mansadiisa iyo hal fikirka arrimaha waa ka hadlo iyadoo la falanqeynayo lagana saarayo aqoonta ku dhex tuugan lana tilmaamo hadii qallo wixii qallo cunto ama hadii qallo ku jiro وتكوبات qodobka labaad ee qoraalka sheegay waxa weeyaan in sare loo qaado saameynta iyo ka faa'iideysiga suugaanta iyo maasooyinka abwaanka sidoo kalena fursad iyo falanqeyn iyo ficilin la siiyo dadka xiiseeya suugaanta iyo guud ahaan bulshooyinka oo ah dadka lahaanshaha maasada u wareegtay markii uu soo saaray abwaanka waa qodobka labaad ka saddexaad waa in taariikhda la geliyo lana sunto aragtiyaha iyo habfikirka abwaanka ee hadda oo bartixraac iyo isbarbardhig u noqon doona isbedel kasta hadduu yahay mid toban iyo mid tobanba oo mustaqbalka yimaada oo ku yimaada aragtida abwaanka oo dabcan la koreysatay waqtiga taagan waxaan ugu biyaa cutubiyada ka kooban yahay buugu aniga waqtiga ilaalinaya buugu wuxuu ka kooban yahay toddobada cutub labada hore waxa weeyaan waa faafinta dhiganaha oo ka hadlaysa taariikhda qoyska buuga sababta loo qoray halqoraalkiisa cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa abwaanka laftiisa dhalashadii barbaarintiisii
hanaqaadkiisii iyo cabdillaahi suugaantiisa halkuu ku bilaabay iyo tafaasiil noocaas afarta cutub ee ku-xigee soo socda markaa 7 bulsanaya afartuba waa maansooyinkiisa haddii ay isku xilli ahaayeen calidhuux iyo salaam carabi amaba gaariye iyo hadraawi iyo xasan ganay aniga cabdillaahi iyo weersami iyo ragalamida cantar iyo horta isku xilli baan qof xilligeedii inuu buur laga qoro tusaale fiican leeyahay dad badan oo si ka duwan sida aan u aaminsanahay buuggan uga hadlay social media arkay oo barkooda cabdillaahi ugu degdegay waraadaan wax la qoray oon dadku aanay wax qoray oon siyaasadda laga qoray oon dhaqanka laga qoray oon hiddaha ummadda laga qoray waa wax ummadnimada ka go-an dowladdii soomaaliyeed ee burburtay dhaxalka keliya tee muuqday ummadda uga tagtay waa inaad soomaaliga qorto qur-aanka in la dhiirigeliyo ayaan qabaa waxaan leeyahay cabdillaahi iyo aduumaa degdegay dib u dhaca bulshadeena soomaaliyeed haysta ayuunbaa la galay inay kudhaahdaan waa degdegtay laakiin waynu iska haddii ilaahay ogolaado waynu iska koranaa oo waynu bislaananaa buuggani dhalinyarada halka fadhida iyo kuwa kale ee soomaalida ah ayuu horta u yahay taariikh oo u yahay xusuus oo u yahay tusaale toosin fara badan iyo tilmaam fara badan ay ka helayaan haddii cunto fara badan oo la cunaa ay jirka awood siiso buugga cabdillaahi iyo qur-aankao dhanna maskaxda ayay kordhiyaan cabdillaahi xasan xaashi cabdillaahi caawa horta waa caruus aada baa looga hadlayaa macnaheedu maaha in ammaanayo suugaantiisii baa lasoo bandhigay waxaa jiray xidigaha geeska markii aana sameynay ayaa awaanin fara badan baa markaan kooxda ka tirsan in badan baa laga doonay war waxaa la qaadayo awaaninta kale kooxda ka baxsan ha lagu soo daro iyo mayna koox lagu koobo in markaa kuwa ka baxsan xidigaha oo cabdillaahi kuwa ka yahay sugaan fara badan oo uu leeyahay xidiguhu qaadan halkan ku qoran yihiinna waxay ku timiday shirayska suugaantiisa maaha jacayl kale iyo si kale oo cabdillaahi kooxdu uga xigto ama uga xigsanayso ama waxaan filayaa cabdillaahi inta uu yaryahay ee uu jimir yaryahay hadda ma suugaan kala oo waa nin xaggaan aada uga qasay xasan xaaji cabdillaahi oo nool nin caan oo waa nin horta kaalin adag ka gudbay markaa mar kalena waan habaleynayaa maalmahana waxaan maqlayay xalay toba in xasan daahir ismaaciil laga joojiyey xaflad shaksiyan waan ka xumahay waa inaan ka kornaa xasan iyo inta lamidihii bulshadu bay toosiyaan way baraarujiyaan mushkiladin inaan dadka ku hayo waan filaya laakiin waan mar iyo laba waan xambaareynayaa waxaan si gaara caawa ugu hambalyeynayaa qoraaga buugga iyo abwaanka qoraaga rooble cabdi muuse oo aanu ilaa iyo taariikh ciyaalnimo aanu saaxiib ahayn nin iga badiyaana uu yaryahay waa nin aqoon-yahan daayara oo dadaal badan karti badan suugaan dhaadhiya waxa weeyaan waa qoraa sida suugaanyahanka u tababaran marka waxaan odhan karaa isaga laftiisu wuxuu dalci doonaa bahda suugaanta ee kolley afarleyda u tuurtuuraa waxaan doonaynaa insha allah isaguna inuu dee ku daydo xasan dhuxul iyo weersame iyo cabdillaahi xasan gareeyo cabdillaahi waa nin suugaantiisu aada arkaysa buugga qaradaha leeg laga qoray dad kale waa nin da-yar oo dhallinyara oo wuu degdegay oo buugga in laga qoro dee aada may taagnayn waxaan leenahay bahdii qalinleyda iyo bahdii suugaantuba way ka koreen hadda intii hore
welibana isaga dee sugaantiisa buug bay gaadhayo waxa soo socda volume 2-gii oo noqoni doona haddii ilaahay idhaahdo dalad ahaan waxaanu qaadanaynaa 70 buug waanu idin hambalyeynana waa tiro yar laakiin waa insha allah inta kale waanu qaadan doonaa waxaynu nahay innaga markaad eegto oo halkan cabdilaahi caawa iga muuqda abtirsiin cusub hore waxaynu u lahayd dee abtirsiin diimeed oo dad islaam aynu nahay abtirsiin qabiil baa la leeyahay inkastoo si fiican loo adeegsan abtirsiinta saddexaad ee jiri lahayd ta soomaalinimada ahaydoo si wanaagsan loola adeegsado oo waa sababta magaca soomaaligu meelo badan aanu sharaf badan uga lahayn laakiin iyadana loo baahan in la nooleeyo abtirsiinta iga muuqata waa abtirsiin sugaaneed sugaanteedu waa ina abtirsiin yeelataa lagu abtirsadaa abtirsiin aqooneed waa inaynu yeelanaa abtirsiin ganacsi waa inaynu yeelanaa oo yacni wax abuur kastoo aynu samaynaa noqdaa mid la iska sii dhaxlo oo sii socda oon halkaa ku baabiin taana waxa weeye waa arrin aad u wanaagsan oo ku soo dhaweynayo runtii aad iyo aad u hogaaminayo abtirsinaha cusub markaynu yeelanno waa halka waa waxa weeyaan bilowga ilbaxnimadeena ilbaxnimo maalintaas koowin oo aan xagga u kacno in waxa kale ka leexano ugu dambeyn waxaan leeyahay ummad waxaynu nahay had iyo jeer waqtiga ay haystaan uu ka badan yahay hawlaha u yaalla waa si ka duwan sida ummadaha kale hawlaha u yaal baa ka badan waqtiga ay haystaan marka waqtiga aynu haysano inaynu ka faa'iidino wax badan gelino problem waxaan leeyahay wax weyn baa muujisay soo dhawow buugana waa baarigaynaa waa barakaynanaa baxda qoraalkana ku soo dhawow aad iyo aad baan waxaan jeclahay inaynu kala sheekaysano buuggan garashayna hor yaalla abwaanka buuggan sugaantiisu ay xambaarsan tahay iyo qoraaga mid yar baan horta doonaya inaan ku bilaabo oo arrin cawa aad iyo aad afka loogu dhufanayo ah abwaanka da'da yar iyo qoraaga da'da yar anigu taa ma qabo adduunyada da'da ciidamisa waa da'dan labada nin iyo da aniga haddii lagu daro waxa weeye fanku horta mahida iyo suugaantu mise waa wax la barto tusaaleyda hor fadhiya cabdilaaho miyaa la bartaa mise waa hibo waa su-aal wanaagsan marka koowaad aan su-aashaa jawaabteeda ka horreysiiyo mahadnaq waxaan u mahadnaqayaa marka koowaad rooble cabdi muuse oo doortay inuu suugaanteeda wax ka qoro aad baan ugu mahadnaqayaa suugaanta miyaa la bartaa mise waa hibo waxaan aaminsanahay markaan horta nolosha guud ahaan u eegnaba nolosha wax qofku yaqaano oon la barani muu jira ilmuhu markuu dhasho hadalkuu bartaa haddana socodkuu bartaa haddana uu yala xijiyaa socodkiiyo uu ordaa laba qof oo wada ordi kara ayaa midi dheeraynaya moo faaraxo kala noqonaya midna uu ordi karaa orodkaa hore way wada barteen intaa isdheeraysiisay ay isdheer yihiin baa hiba oo hibada iyo taalentku markaa kelmidda hibo saa ka dhadhanaysaa waxa weeyaan wax ilaahay bixiyey oo qofka siiyey oo aanu u siinin waxa laga yaaba dhammaanteed inuu logayna siiyey oo dadkoo dhan inta badan dee qof curyaan uma inay ka siman yihiin tusaale ahaan oo kale dadka intan halka saddexina ka fadhiya badan soo qaadato laakiin inaynu lixdeenan lugeed ku kala dheerayno keena ugu dheereeyo waa hibo gaari ilaahay siiyey garashay ka bilaabantay annaga isbarashadayadu intii kadib waa dee sugaanta cabdilaahi baan sii dhex galay beri dambaa nairobi anigoo shaqow jooga dee nairobina waad garanaysaa jaamkeeda ayaanu meel jaam ku galnay dabadeedna markii jaamka la galay baan mobilkayga iskala soo baxay youtube-kan wax ka furtay maanse cabdilaahi leeyahay baan meel ka dhexelo ii dhuumatay waa maansada la ydhaa culays oo waxay ka mid tahay maansada uu bixiye cabdilaahi dulmidiidka waa maanse bixinaysa humaag inan dadka soomaalidu ka dhalatay sida aan caqli iyo diin iyo aqoon iyo dhaqan toona ku salaysnayn loo haybsooco oo inan qurux badana inan dhaqan wanaagsana inan qoys wanaagsan ka dhalatay hooyaaba fiican koriyeen diin leh aqoon leh ilaahay dhammaystiray dabadeedna inan bay isjeclaadeenay wada sheekaysan jireen inankiibaa ogaaday inay reerkan ka dhalatay marka maadaama dee dhaqan xunoo bulshadiisa ka jira ay tahay isaga laftiisa wax loogu cudurdaari kara inaan derbigaa jabin karin inantiibuu ku yidhi dee jacaylkeennii mustaqbal dambe ma laha oo dheer dee laiskuma keen ogolaanayana
dabadeedna inantaa maansadaa culays uu cabdilaahi ka soo warinaya waxa si gaaray taabtay inantii oo kala dooranaysa haldoorkii ummadda iyo dhaqanka oo le culimada aan waxba ka rabin abwaaniinta la hadlaysa dowladnimada la hadlaysa aqoon-yahankii ummadda la hadlaysa waxaanay Soomaalidu nafsiga tahay hadii la yiraahdo qofka la dulmiyo nafsi baa u yimaada marka nafsiga laftiisa la hadlayso le gaaway hay iman nafsiga igu simay in anigoo sanoo dhan lay wanaajiyay wixii aan u qalmeeyaa maynankii aan jeclayn aanay bulshadeedii iyo dhaqankayga aan u ogolayn inaan mustaqbal wada sameeyno nafsigaasi xitaa ha maqnaado maansada cabdilaahi markaa wuxuu ku soo xidhay kelmad uu leeyahay had iyo goor dadku waxay yidhaahdaan markaa dadkan la haybsooco hiil bay u baahan yihiin markaa kelmad buu cabdilaahi ku soo xidhay uu leeyahay iyagu hiil uma baahna waxa hiil u baahan qofka kale Soomaaliga ah ee qof walaalkiya oo aanu hayn hal xaqiiqo ama hal arin oo u saamaxaya inuu ku liidaya marka cabdilaahi maasiis waxa ku soo xidhmaysaa cidda hiilka u baahan waa qolada laandheeraha isku haysata ee ku dhaqmaysa gunnimada inay dad walaalkooda dulmiyaan kuwaas inay jaahilnimo caqli xumo dulmi inay kuwaa doqonnimadu hayso cidda hiilka u baahana ciddan sida khaladka loo yasayaanay ahayn ay tahay cidda dulmiga faraha kula jirta iyo inuu soo caawinaysa runtii waan ooyay qoliyahan isku dhownay yaqaanaan in iska emotional aan ahay aad baan u ilmeeyay way xaqiiqada fooshxun way dhibtay anoo ooyay marka cabdilaahi soo wacay waxaan ku yiri arrinkaad ma tii aynu ka sheekaysanayneed igu lahayd maad aniga igu barbaratid maba aha runtii aduu kaftan baad u lahayd laakiin haddii maasadani ay ku jirto suugaantaada shayga koowaad ee aan qoraya haddii aan la idhaa waa suugaantaada markaa sheekada horta taasay cabdisalaam ahayd waxaa in yar uun raacdaa in aan hadraawi u aqaan oo dadtayda dejistay markaa balay in cabdilaahi uu hadraawigii aan rabay inaan qoray u dhaafay weli mu gaadhin inkastoo hadraawiga daayarta u yaqaan laakiin waxay ahayd hadraawi baan u aqaanaa afar shakhsiyadood oo hadraawigii 70-nadii markuu soo baxay hadraawigii jacaylka iyo dareenada iyo dee baladweyn iyo hooyay la'aanta dadku inuu ku caabudo heesaa jacaylka hadraawi waa taqaanaa hadraawigii xilligaa hadraawi dhaxaa jiro oo qoyska intuu ka guuray iyo jacaylka u guuray dowladnimada markaa waa hadraawigii deelayda siinlayda halkaa kaga bilow dee dhowr iyo 10 maasay wada da'da daalalay dabahuwan abtu yadila daalalay adimanayso hadraawi dambaa jira markaayo mucaaridnimadii iyo aggressionka intuu ka baxay hadraawiga gudgude oo markaa si guud maxaa ummadda ka khaldan oo markaa position kala taagan hadraawiga ka dambeeyay baan anu aqaanaa markaa horta afar hadraawi anu aqaan shakhsiyan taan aan caddeeyo yaan saan lay qabsanin aniga falanqayntayda unba afar hadraawi haysata hadraawi dambaa markaa isna soo baxay oo hadraawiga afkusira oo ka hadlaya haddii meel duura aad u baahato inaad candhuuf ku tufto ka fikir in inta ugu yar candhuuftaada ay gaari karto oo dhagaxa candhuufa ku tufin geedkasan ha yeelin markaa humanity-ga iyo waxaan ay yidhaahdaan bini'aadminimada intuu dhaafay hadraawi caalamiya oo dee ka hadlaya geedka la jarayo oo ile geedkuu ka aamusan yahay wax ku lugeyn marka waxaan dareemi jiray niyow haddii hadraawiga iyadaa wax laga kala qori lahaa aqoon weyn oo luntay bay ahayd marka waxaan isiri bal hadraawigan hadda bal bartan ku qaba cabdilaahi haddii cabdilaahi isu kaa badbedelo dee caddaynta dabawad marka maasadaas iyo dareenka aan hadraawi ka qabay inuu afar qof yahay ee qofkii saddexaad qoraalka laakiin unfortunately lagu bilaabay labadaasoo isku biiray ayaa cabdisalaam runtii ay ahayd markaa waxaan soo qaban doonaa maansada la yidhaahdo dhimir maansadaasi waxay ka hadlaysaa uun dad muxuu ahaaye dadka naafada ah sida loola dhaqmo iyo maansada laga dhex heli kari doonaa fura baldhaayaha bal dareenka dhiibiya bal ogaal ku dhiirada u dhug yeesha baahida u dhegtaaga qaylada bal dhagaysta naafada maxastiyo dhulyaalada danyartiyo dhagoolaha dhibanaha lamoogaha iyo dhimirka waayaha
lagu falo dhibaatada nin laxaad dhammaystiran rabbi xoogu dhaliyow lafta dheere dhabarkiyo mid laguu ka dhimayiin bal dhankiisa daymood dhaaya qaba indhoolaha ma dhowayn karaysaa hawshiyo dhibtuu qabo bal dhacdooyin faallee dib u raac dharaaraha taariikhda dhaariya dhowra baylahdeenno dhinacyada baldaawada maxaa aabba dhaban iyo dhafoor ceelo yeesho dhowrtaysta shilimaad imisaa dhallaan jira iyo hooyo dhaawacan imisaa dhasheennii iyo dhalinyarteennii dhaxantiyo bannaanada weheshada dhurwaayada imisaa nindhaqameed garashiya ildheera dhulka maanta yaallo maankiisu dheeliyey imisaa dhabeel dumar gaari dhaaftay qayrkeed oo dhowrsanaantiyo qiimihiiyo dheehaba lagu dheehan jiray waa dhiman oo ku xidhan meel imisaa ma dhaafaan dhamac iyo maliicaan dhisi jiray wax dhigi jiray dhaqan jiray wax dhiqi jiray marka ay dhanaan tahay dhulka hooyo jiri jiray dhicin jiray ku dhiman jiray dhiirdhiiranaan jiray oo guusha dhalin jiray dhex wareega suuqyada isagoon dharkii qabin biyo kama dhibcaan iyo imisaa halyey dhaba maansooyin dhaadheer iyo dhaanta tumi jiray maahmaahyo dhigi jiray dhudda gabayga curin jiray hadalkana ku dhufan jiray dhalowda iyo xaqiiqada maandhoon wareegiyo qalbi dhaawac ku habsaday la dheeldheeliyayo aan cidiba dhaadayn kuwa dhimirka waayee xisku kala dhantaalmee huga iyo maryaha dhigay een dhaxan qabow iyo milicda iyo dhamacdii inta ay dharbaaxeen dhalan rogay jidhkoodii ee dowlad dhoortoo dhibta uga miciintiyo dhakhtar lagu daweeyiyo shicib dhuuni siiyo dheef uga adkaadiyo arxan iyo dhaqaaliyo aan dhegad nugeyl arag dhinacaad ka joogtay dhibtu kaga bannaantee haddii aanad dhaadayn in dhabtooda taallaa ugu filan dhibaatee ha ku falina dheeraad ha ka dhiganin maadays iyo dheel waxgeli kara ha dhaliilin weliga ha ku odhan dhawaaq hurur ha ku naarin dhaayaha ha ku dhiifin weedhaha ha ku dhaafin gaajada ha ku dhowrin baahida ha ku tuurin dhagaxaan inaad dhowrto mooye qof xanuunsan lama dhibo warku wuxuu u dhacayaa dheeraad siduu yidhi dhaqaaleeya naafada dhibta uga miciino naxariis bal kula dhaqan afartaa in iga dhaba iyo waana dhaxalgala dhibic saar haddana dhaaf dhinac kalena aan rogo dadku waa dhigaago adiguba dhinaashiyo waad dhaliila badantee ha ku dhiirin weliga qofka talada dhaaftiyo dhaawiciisa oo qura adoon dhiiri gelin weli ama tiraba dhowr jeer dhegta waana ugu ridin yaan hadalla kaa dhicin kala dhimasho mooye dhibta aan dawayn karin dadka ruuxa kuu dhow dheeftiisa qiimee la dhacqaayihiiso hadba guushu dhaliyiyo hambalyada ku dheerow dhaqankeennu yuu noqon dhiirana halyeygiyo gaarida mid dhowruun dhaqankeennu yuu noqon qof laxaad dhamaysiyo dhumucda iyo aragiyo dheehuun mid raacown dhaqankeennu yuu noqon boqor xoolo dhoobtiyo nin dhaqaala haystiyo mid tijaar u dhega nugul danyartana ku dheeliya warku wuxuu u dhacayaa haddaad caawa dhacadiid dharagaad u jiiftood ku cashaysa dhaylada ma og tahay in dhowr guri oo dhinaca kaa yaal inaan dhuuni lagu cunin hadduu ramadku kuu dhalay oo dhayda werisiyo dhanto jinowga laalays ma og tahay in dhowr qoys oo dhinaca kaa yaal inaan dhaashi lagu hayn haddaad fooqyo dhaadheer iyo daara dhisatood hoy dhiibsan leedahay ma og tahay in dhowr qoys oo dhinaca kaa yaal iyaga iyo dhashooduba dhaska iyo camuudiyo inay dhooba seexdaan haddii aad dhammays tahay u dhanyahay kaskiisiyo dhammi waaxyahoysii ma og tahay in dhowr ruux oo adiga kuu dhow dhimirka iyo garaadkiyo in xuskoodu dheeliyey way dheer tahay intaasaan kasoo qaban lahataa buugga mar dhaweyd baan akhriyey waxoogaa markaan akhriyay aniga hal qabiil baa aada u soo jiitay oo screen touch ugu bixiyey abwaab run ahaantii aan aada ula dhacay weliba habluhu ku ammaanaya haddii markaan aan soo qabto in yaroo ka mid a muuqa iyo aragtida screen touch baa tahay
garashadii aqoontana iPhone-ka daaqi malaha 5S baa tahay marka waa tii inoo sheegayay nin halkan iga horreeyey waxaa aada ii soo qabatay in hada jeer abwaanku uu ka tarjumo bulshada uu ku dhex nool yahay maadaama aynu nahay ummad iminka aada u adeegsata technology run ahaantii abwaanka aada iyo aad baan ugu maaragtay oo maanta marka laga hadlayo de waa wax laga hadlayaa waa technology aada iyo aad baad mahadsantihiin hal qodob baan ku dari lahaa qoraaga iyo shirkadda soo saartay waxaan ku baraarujin lahaa buugga inay ka dhigaan ebook format oo lagu iibiyo platformyo kala badan Amazon kildamba u badan Google Play-ga ka xiga Sony weelada waayo waxa jira dad badan oo maanta jeclaan lahayn inay helaan buuggan marka halka uu isagoo hard copy laga iibinayo dadka inta qiimaha in leegun baa laga siin karaa iyadoo electronia sidoo kale wixii copyright waa la ilaaliyaa platformyadaasi waxa kale oo jira imkaan wax laga yaabaa iPad yar oo siteen aad door kuna buug aad ku qaadato uu ka fudud yahay wax badan marka intaas ma ku dari lahaa warraantay ka faa'iideystaan lahaa technology-ga si guud aan ugu horeeyay malaha wasiirada fadhiya waxaan isla garay inaan min 100 buug qaadan afarteeda meesha fadhiyaan marka taasna waa muhiim horta waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan bini aadamku hal iyo jeer wuxuu xusaa marka la tago kullayba ama ha laga tago ama ifka ha lagaga qoro ninkii carabkii wuxuu yidhi annaasu sarfaan dadku waa laba nooc mawtaa fi xayaatihim qaar adduunyada cusleeye unoo iska nool wa aakharuuna bibadni lardi axyaa qaarna iyagoo dhintay bay nool yihiin marka waxa weeyaan in moogtahay dhiirigelin adoo nool lagu siiyo way ka fiican tahay in lagu xasuusto markaad tagto marka waxaan rajaynayaa cabdilaahi maadaama isagoo dhalinyar mar haddii la dhiirigeliyey dee inuu sida badda u qarxo oo soo saaro waxa uu soo saaray kumayaalkeed sugaantu waa wax moogtahay muhiima taariikhda inaku aada uma qiimayno laakiinse dadkeennu waa sugaanyahan siday wax u yidhaahdiin aada ay u qiimo badan tahay marka waxa weeyaan habka cusub ee iminkaa bilowday oo aada ila qurux badan waayo waxa weeyaan adiga nool marka moogtahay wixii aada qabatay la tilmaamo waxay keenaysaa in moogtahay kuwa kalena ay ku daydaano in la xusi doono iyaguna ay dareemaan oo halka ay moogtahay sugaantu ay kasii ballaaranto run ahaantii badan baa la hadleen dhabeereeg baan odhan doonaa hadduu ilaahay idhaahdo buugga qiimihiisa waa laga hadlay ku noqon maayo nin abwaana baa tiriyey oo sida la xusay abwaan weyn oo la garanaya u dhalay oo hoboladii waa beri ka soo jeedaa waxaana la sheegay inuu kollay hidaraac iyo uu gaba yahay halkaa waxaan ku darayaa gabayga laftiisa iyo heesaaba hidaraacuna wuu jiraa laakiin ciilkana waa lagu bartaa caashaqana waa lagu bartaa sidii cilmi boodhari oo kale marka qof kastaaba markuu ciishaysan yahay wax wuu tiriyaa haddaad ciishaysan tahay ood ciil la kulanto wax waad tirinaysaa anigu markii aan yaraa halgankiiya sanamtaan kasoo qayb qaata run ahaantii maa gebi jirin anu manaan heesi jirin laakiin waxaan bartay intii la dagaalamayay iska celiyana sidaan u hayo markii dambe waxba oo tirin jirin markaa qofku ciilkana wuu ku baranaya ciidigana wuu ku baranaya aada iyo aad baan buugga u bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa laasaduna waa kolba sidaad u isticmaasho waxaa kaloon aada iyo aada u hambaleynayaa waa laabsaarax oon lagu gaari karin heesaha qaranka ee marka aad halkaa stageka la soo taagay runaantii dhiiggaaga iyo naftaaduba way dhaqaaqayaan yaa muwaadinay haddii la idhaahdo cabdilaahi oo ka soo jeeda sida la sheegay aynu naqaano qoys ku suntan suugaanta soomaalida oo ay isaga dhaleen xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay iyo cadan axmed kaahiin oo ka mid ahaa hobolladii waaberi aniga cabdilaahi waxaan wadaagnaa sida hor la sheegay magacaan wadaagnaa
cabdilaahi waa cabdilaahi anna waxaan cabdilaahi waxa kaloonu wadaagnaa sida ku qoran boogeysa iskuulka biyaadhacayga hoose oo cabdilaahi ayaan anugu iskuulkaygii ahaa marka aniga cabdilaahi runtii markaan qiimeeyo waxaan islaayin badan baad ka weyn tahaye 12 sannadood baa noo dhexeeya maalintii iskuulka la qoray maalintii isaga iskuulka la qoray marka kale cabdilaahi waxaan aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaa aad ii soo jiitay aniga oo aad ii soo jiitay qodobka toosinta iyo qodobka siyaasadda maadaama siyaasiyiin nahay inaan wax badan ka nidhaahno kole falcelinna insha Allah waan ka samayn doonaa wax badan oo jiraan way jiraan wax badan oo u baahan la saxaana kole runtii way jirtaa marka labada cutub aad buu ii soo jiiteen qodobna waxaan jecelahay inaan ka idhaahdo kole marka qof siyaasi tahay munaasabad noocan oo kala waxa jira xaalado jira oo u baahan inaynu wax ka nidhaahno runtii waxa jira dastuurkeena qaranka sida ku qoran waxa jira xorriyado asaasiya ay ka mid tahay xorriyadda hadalka xorriyadda siyaasadda xorriyadda fikirka xorriyadaha ganacsiga marka runtii anigu shakhsi ahaan ana ku hadlayo fikirkayga shakhsiga waxaan jecelahay in la soo dhaweeyo xorriyadaha uu dastuurku inoo damaanad qaaday midda ku xisaabtama waxa xorriyad la yiraahdo islaamka dhexdiisa marka laga hadlayo xorriyad mutlaq ma jirto xorriyadu waxay la waxadaysan tahay sababtoo waxa la doonayaa muslimku gebigiisuba marka la soo koobo waxa la yiraahdo inaad ka nabad gasho ninka qofka kale muslimkii carabkaaga iyo ficilkaaga inuu ka nabad galo marka inaga lafteeduna xorriyadaha inaanu arkin waynu sii dayn karnaa wala samayn karaa laakiin xorriyadu waa inay yeelataa xaddi qofka bilaadankiina maanta waxa jira waxa la yiraahdo social media laga yaabo marka hore xantu waxay noqon jirtay inay 2 qof iyo 3 qof gaadho xantuna sideedaba waxa weeyaan ma aha qofka inaad ku sheegto wuxuu ku ceebaysan yahay laakiin waxa weeye xantu qofku waxaan raali ka ahayn lafteedu waxan marka runtii waxaan soo dhaweynayaa in xorriyadaha xukuumadahan iyo shacab ahaanba aynu isku ixtiraamno aniguna fikir ahaan waan soo jeedinayaa waan ku raacsanahay in la helo xorriyadda hadalka runtii anigu haddaan yar dib ugu noqdo waxyaabaha igu kalifayna siyaasi noqdo waxay ahayd xorriyadaha qayb ka mid ah xorriyadda siyaasadda sababtaanu marka hore waxaan ahaa nin ganacsada waxa igu kalifay inaan siyaasad galo markaan u waayay xorriyadaydii siyaasiga ahayd iyo fikirkaygii waxay igu khasabtay inaan wax ku bedelo maanta ana xukuumaddii ka tirsanna suurtagal iga noqon mayso inaan raalli ku noqdo in la yidhaahdo xorriyaddii hadalka aba xorriyaddii siyaasadda ayaa la caqabay sababta wixii aan u soo joogay ee aan u soo dagaalamay ay ka hor imanaysaa runtii anigu waxaan jecelahay qof kasta oo mucaarid ah ama muxaafid ah waxaa jira waxaynu wadaagnaa waxa weeye dowladnimada waynu wadaagnaa qof kasta oo mucaarid waa cashuur bixiye anna waxaan cashuur bixiye waxaan dheeray ma jiro waxaan dheeray anigu inaan u adeego oon seerfis u qabto qofka muwaadinka ama ha noqdo mucaarid ama ha noqdo muxaafid marka waxaan u baahannahay inay siyaasaddeenu noqoto majhuur aanay u ekaanin marna in dowladda la eryado marna mucaaridka la eryado laakiin inaynu waxaanu wadaagnaa jirto waxaan u baahannahay siyaasad constructive ah waxyaabaha waajibka waxa weeye aniga khasbi maayo inaan dhaqaalihii yaraa ee ummadda laga soo ururiyey inaan wada ku laalusho laakiin xilkay saarani waxa weeye aniga in wax laga qabto GDP-ga qaranka si hoos loogu dhimo faqriga waxa xilna inaga saaran yahay si loo yareeyo shaqo yaraanta oo aad ogtihiin 75% dadkeenu waa bila camal waxa xil inaga saaran inaan wax ka qabanno sixir bararka iyo qiimo dhaca lacagta ku dhacaya waxa xil inaga saaran yahay dalkan inuu yeesho production si loo dhimo importka faraha badan leh soo dejisano exportkeenu sare u kaco isla markaana GDP-geenu sare u kaco xilalka iyo waajibaadkaas horta xukuumadda loo doortaa waxaan maanta u soo dhawaanaynaa marba marka ka dambaysa nidaamkii dowladnimada runtii maanta aad waxaan ugu faraxsanahay waxa aad u yaraaday inta xukuumadda jirtay madax dhaqameedkii la caleemasaari jiray runtii waa xaqiiq jirta taasina waxa weeyaan haddii la awood geliyo jiha kale la awood geliyo waxay saameyn ku noqonaysaa inay ummadda intii loo adeegi lahaa in kooban loo adeego marka runtii waxaan jecelahay qodobadaasna inaan isku macaaridno oo la yiraahdo dawladdu maxay waxyaabaha ka qabatay 1 2 3 4 5
waxaan intaas waa intii siyaasadda kolley waxaan dardaaran aan odhanayaa abwaanka cabdilaahi waan isku magacnahay runtii marka laga hadlayo ummadda soomaalida abwaanada inta badan taabagalay ee sugaantooda la dhagaysto dhulka soomaalida oo dhan uu ka mid ahaa cabdilaahi suldaan timcadde laba shay baa inta badan la yidhaha waa sabab sidaa uu sheegay ninkii iga horreeyey gabaygu hadduu guri galo qiimo ma yeesho oo shayga koowaad uu noqdo in lacag lagu helo qodobka labaad hadduu qabyaalad kaa galana ma hana qaado marka cabdilaahi waxaan ka dardaarayaa inuu hiigsado sidaa cabdilaahi suldaan timcadde waxaa la sheegaa noloshiisa inaanu qabyaalad cabdilaahi suldaan timcadde maantana marka laga hadlaayo koonfuriya waqooyiba ninka loo soo qaato ninkii ugu qabyaalada yaraa inuu ahaa ayayna ina tusaysaa marka waxaan jeclay inuu kuu noqdo role model cabdilaahi oo isku magac tihiin cabdilaahi oo maanta inooga tegay raad muuqda oo insha allah ku dayan doono xukuumad ahaan waxay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan maadaama aan afhayeenkeedii ahay marka ugu horeysa iyadoo raacaysa dastuurka qaranka in ay ogoshahay inay ku shaqayso inay saxaafadda madaxa bannaan ixtiraamto qodobka labaad saxaafadda madaxa bannaan in loo isticmaalo in ummadda reer somalilan lagu hagardaameeyana maaha inay u noqoto cod cadowga somalilan ku raaxaystana maaha in ninkii soo weerarayay iyo ninka gudaha jooga isku cod noqdaanna maaha abwaanka iyo saxafigaba waxaa looga baahan yahay tudhaale tudhaalaha looga baahan yahay waxa weeye inuu wax dhiso ee inuu wax dumiyo ma waxaad aragteen dad badan oo social mediaha qarankan wax badan oo dhiba kaga sheegay oo ku nool hargeysa ama ku nool burco ama ku nool berbera waxaan qabaa inaanay xogogaalu ahayn dalkan geedi socodkii nabadda iyo horumarkii la sameeyey ee ay u arkaan dhalanteed wax lagu ciyaaro iyo in dhagaxa meeshii la rabo lagu tuuri karo qofku wuxuu leeyahay ma dhaafto iyo mage iyo wax la yidhaahdo inuusan dhaafin xariijinta uu bini aadamku u aqoonsan yahay inay tahay noloshiisa dad badan baa qayliya haddii la yidhaha weriyaa la xidha weriyaha intuu reer u tago ku odhanaya reerkiinnii kale baa idiin diyaar garoobaye idinku maxaad berrito yeelaysaan bal ka warraba weriyaha odhanaya geed hebel baa geed hebel ku soo duulaye idinka maxaa idinka diyaarsan maxay noqonaysaa waxaan is leeyahay aniga iyo embassy iyo ninka la yidhaahdo hereri waxaanu fadhinaa kuraas khaldan caaw kuraastaa dadka meesha fadhiya boqolkiiba 95 waa dadaan xoogogaal u ahayn sidii somalilan taa maanta quruxda badan lagu soo asaasay ama ay ku timi haddaad ogaan lahaydeen hargeysi waxay shalay ahayd ama burco ahayd ama berberi ahayd ama hargeysa iyo boorame inta loo kala socon jiray iyo inta kantaroolo yaalla iyo dalkani siduu ku asaasmay dad badani waa u turi lahaayeen laakiin qaar baa u arka inay arrintu tahay fiilada quruxda badan iyo hudheelka quruxda badan iyo guriga quruxda badani miduu la dhashay bay u arkaan simple ayay u arkaan laakiin meesha loo soo maray caawa in sidaa loo raaxaysto iyo ragga aakhiro u jira iyo inta nabadda lagu dilay
iyo inta been la heshiisiyey iyo inta la isu keenay iyo inta lagu kala kacay iyo inta la isu guray rag baan ka xoogagaalka ah dimuqraadiyadda maanta lagu hadlayo iyo saxaafadda iyo waxa quruxda badan ee la arkayo rag baa u dhabar adeygay oo u dhintay oo ay maanta aakhiro jiraan raggii aan wax la bilaabayna maanta 5% kama noqon haddii la yidhaahdo war hal la dhowro khalad maahaan u malaynaya haddii la yidhaahdo yaan la dhibin khalad maaha haddii la yidhaahdo war doorashaynu dimuqraadiyad baynu dooranay geel maynan kala qaadin innagaa dooranay doorashada dimuqraadiyadda one man one vote inaynu ku kala baxno dhallinyarada ayaa ugu daran kuwa afka qabiilka ku hadla waxba lagama qabo doorashadu waynu ka wada hadli karnaa dimuqraadiyaddu ma hore inoo dhaqaajisay mise dib bay inoo celisay ma dib bay inoo dhaqaajisay mise hore inoo celisay qaar badan oo aan anigu ku jiraa waxaan qabaa dimuqraadiyaddu inay dib inoo celisay waxay dib inoo ku celisay qoys qoys iyo qof qof iyo reer reer bayna istaajisay innagoo isku duuban waa sidee marka sida loo isticmaalay si khaldan baynu isticmaalay sidii loogu talagalay waxaynu naqaanay oo keliya reer hebel baa geeli qaadee soo dhaqaaqay inta ina ka dhaxaysay intaasay ahayd doorashadii markii la keenay oo kursiga la helay waxaa loo isticmaalay ereygii ahaa geelii baa nala ka dhacay soo dhaqaaqay wargeel maynan kala dhicin cod baynu sanduuq baa cod lagu ridaya sanduuqaasaynu ku kala baxayna haddii aynan ku kalsoonayn waxaynu u baahannahay inaynu isu nimaadno nidhaahno waddadaa dimuqraadiyaddu ina wadi weydayay maxaynu ku bedelaa maxaynu ku bedelaa waa laga yaabaa manduuca aan qaatay inuu ka duwan yahay toodayaashu qaateen laakiin gabayga iyo tiriyaha iyo buugga waxaa qaatay dad badan ammaantoodaan la qabaa waxay yidhaahdeenna waan la qabaa laakiin sidee somalilan u wada noolaata dad badan ayaa anigoo 27 sannadood dalka ka soo shaqaynayay ilaa maalintii boorama taagnaa oo geedkay qaadaba soo taagnaa waxaynu u baahannahay from qofka ku nool lawyacaddo ilaa iyo qofka ku nool ceelaya inay wada jiraan inay wada noolaadaan inay isogol yihiin inay isku dan yihiin inay isku dal yihiin inay isku dan yihiin in qarankan la wada leeyahay la wada dareemo ee uusan noqon mid danka raran mid cid gaari sheegato iyo mid la gacan bidixeeyo cidna qarannimada aynu rabnaa inaynu ku naaloonnaa waa taa waxaan isleeyahay dadka in badan oo caqli badan baan la soo shaqeeyey somalilaanta maanta aynu joogno halkan waxay ku timid feker badan iyo isu tanaasul iyo is-aqoonsi iyo is-yiqiin iyo isu sheeg iyo isaga tanaasul waxaynu rabnaa inaynu tii sii wadno inaynu xerada oodnaa loo baahan inaynu gidaar dhisno la yidhaahdo ummad maalin dhaweyd waxaan ka akhriyayay hadal jaamacadda golis waxaan weydiiyey dadkii golis wadaniyadda iyo nabaddu waxay tahay mawduuca baan qaatay nabadda iyo wadaniyadda dhowr arday baan istaajiyey nabadda iyo wadaniyadda waxay kala tahay xitaa iyadii bay kala saari kari waaye qaranka aynu maanta halkan ka fadhino waxaynu u baahannahay inaynu iskaga mid noqonno
yaan layna misliid garayn oo dadka dhallinyarada ah ee maanta jooga meel fiican baad maraysaan waxaa laydinku odhanayaa wax lama qaban wax badan baa la qabtay wax badan baa la qabtay marka laga soo bilaabo say shalay ahayd fakarkeennu waa inuu ahaadaa berri maanta ka fiican cidda laga rabaa inay dhisto qarankanna waa idinka wax badan baa laygu yidhi anoo soo taagan madaxdii berritaad noqonaysaa laakiin been baan u haysta laakiin idinkuna waad noqonaysaa قول بان دين رجينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أخبار السلام عليكم